dugsiga tababarada ciidanka BMBF waxa uu maanta tababar ugu soo xiray taliska guud cutubyo ka tirsan ururada sida gaarka u tababaran ee ciidanka BMBF iyo kuwa suga amniga taliska guud ee ciidamada. muddadu tababarku socday waxaa qayb ka mid ah ururka sida gaarka u tababaran ee BMBF lagu leeliyay xeeladaha asaasiga ah ee badda looga howlgalo maadaama ciidamadu horey u ahaayeen cutubyo ka howlgala bariga qaabka ugu wanaagsan ee badda howlgallada looga sameeyo badmaaxnimada fasirka khariidada isticmaalka night vision-ka barashada cilad bixinta doonyaha isticmaalka hubka noocyadiisa kala duwan jirdhiska iyo dibishiliinka ciidanka. sidoo kale ciidanka qaybta ilaalada taliska guud ee BMBF ayaa iyagana lagu leeliyay shiishka qoryaha kala duwan ee hubka culus ilaalinta goobaha muhiimka ah baarida gawaarida iyo agabka kale baarida dadka iyo qaabka amniga loogu sugo kaamiradaha qarsoon ee amniyaadka. munaasabadda xiritaanka tababarka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ururka gaarka ee ciidanka BMBF gaashaanla dhexe Maxamuud Shire, taliyaha ururka amniyaadka taliska guud ee ciidanka Dhamme Cabdiraxmaan Dheere, taliye ku-xigeenka dugsiga tababarada Dhamme Cabdirasaaq Mir Angola iyo saraakiil ka tirsan dugsiga tababarada waxayna dhammaantood bogaadiyeen ciidamada maanta tababarka dhammaystay. runtii labada kooxood kooxda koowaad oo ka tirsanayd ururka koowaad ee kumaandada oo qaadanaysay howlgalka asaaska ah ee badda oo runtii iyadu koorsho dhammaystiran ahayd muddo dheerna socotay. runtii waxay ahaayeen ciidan sidii ugu wanaagsan ee tababarka u qaatay sidii loo baahnaa iyo si kasii wanaagsanna uga soo dhalaalay iyagoo ay hogaaminayeen saraakiishoodii xukuntay iyo saraakiil xigeenkoodii. runtii intii tababarkaas socday waxay ku qaateen howlgallada badda oo dhammaystiran waxay ku qaateen barashada badnaaxnimada waxay ku qaateen ocean geography waxay ku qaateen barashada doonyaha noocyadeeda kala duwan waxay ku qaateen barashada hubka culus noocyadiisa kala duwan waxay ku qaateen si joogtaan ay ugu qaadanayeen jirdhis dhammaystiran oo waxa weeye oo kumbuleeda waxay iyana waqti badan iyo si joogtaan ah tababarka culayska loo saarayay macallimiintu u saarayeen dhisidda dishibliinka. waxaynu ognahay ciidan wax kasta oo jiritaankiisa asaaska udub dhaxaadka waxa uu noqdo waa dishibliinka. runtii waxaan aad ugu faraxsanahay ciidankeena inuu ay yihiin ciidan dishibliinkooda aad u wanaagsan yihiin. aad baan idinku hambalyeynaya tababarka soo qaadateen lama rabo tababarka inta dugsiga joogtaan kaliya inuu ahaado laakiin waxaan rabaa mar kasta inuu anfaco ku shaqeysaan oo dalka iyo dadka iyo diinta iyo dawladaba ugu shaqeysaan. askarigu waa ilaaliye tababar buu ku jiraa iyo wax ka dhaxaysa inuu operation ku jiro horta waxbarashada u qaato qofku waxa la rabaa inay anfacdo dalka iyo dadka iyo diinta intaba ugu shaqeeyo. tababarka aad soo qaadateen iyo juhdiga laydinku soo baxshay iyo sida dibishiniinka laydinka soo gudbiyey waa midaan idinku ogeyn halkii waa kasii wadeen. tababarkiinana waa aragnay usoo baraatikala qaabka yani usoo qaadateen iyo juhdiga laydin geliyey. horey ciidanka kumaandoos waxay u howlgeli jireen beriga haddana waxaan idinku soo daray badda marka waxaan leenahay tababarkaasna waxaan rabnaa insha allah haddii la hadmo bad iyo beri inaan ugu shaqeyno dalka iyo dadka. ciidan kale oo amniga la baray oo mataqaanaa amniga xeradaana iyana waa kuwa lagu hurdo tababarka layn baray oo mataqaanaa halkan isna juhdigiisa laga soo jeediyey waxaan rabnaa iyana inaad mataqaanaa waa laydinku hurdaa dhammaan dalka iyo dadka laydinku hurda iyo amniga xerada aad haysaanin. waxaan rabnaa inaa dhowr inuu noqon baaritaanka qaabka gaadiidka iyo qaabka socodka iyo habeenkii maluuga kulliba in aad ugu feejignaataanin.